wanaagsan ma marayso qabay dhaqaaqin baan filaya jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa dee waayo dadaalkeygii iyo xaggeena iyo xaggooda labadaba inaanay weli isla jaan qaadin marka inta aan ogahay United Nationska iyo Somaliland arrinta aqoonsiga meel imika farta lagu fiiqi karo ay marayso kama warqay maxaa dadaaladaasi hortaagan baad isleedahay hadday noqoto labada dhinac ama Somaliland ama jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa anigu intaan ogahay adduunyadan ka aqaano looma keeno aqoonsiga waa la doontaay laguma keeno wadamada adduunyada la aqoonsaday amba is aqoonsaday kuraasida kulehina de waxa weeye dad kasbaday marka Somaliland dadaal badan way keentay oo nabadgelyadu ay ka mid tahay oo dawlad dhisan 25 sanadood u dambeeyay laakiin waxa wali dhiman dadaalkii xaasoo dhan inta la isku duuduubo in laga dhigo war adduunyada deeqa maxaad isleedahay markaa sababta qaramada midoobay ay u aqoonsan laadahay oo aqoonsiga ilaa haatan Somaliland loo sii laayahay maxaa sababa jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa adduunyada inta eegto ma tidhaahdo waddankaasaan u aqoonsanayna jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa weeye urur ay abuureen wadamada adduunyada ayaa abuuray iyadu gooni uma taagna adduunyada dawladaha ka dhisan ee abuuray ayaa jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ku tiirsan tahay marka aqoonsiga Somaliland loo raadinaya aniga sidoo ila egtahay weeye waxa weeye ma ahin jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa laga raadsaday waxa weeye adduunyada wadamada ugu quwad leh ee kartideeda leh ee inta kale riixi kara in dadaalkeedii la keenay sida kuwa loo gudagalay waa gartay marka 26 sano ayaa ka soo wareegtay gooni sutaaga Somaliland sida aad sheegtayna dadaal ku filan lama qaadin inay doonta ka timaade marka goorma ayay qaadanaysaa bay kula tahay in la helo dadaalkii saxda ahaa ee arrimahaasi lagu xaqiijin lahaa dadka reer Somaliland aad bay ugu ooman yihiin xaqna way u leeyihiin adduunyadu inay garato oo kursiga adduunyada ay ku leedahay Somaliland laakiin waxa aan isla fahamneen ku sheegay waa dadaal cusub in la keeno muddo 3 sanadood laga joogo iyo badna arrintan waan ku dhawaaqay waddanka gudihiisana waan ka sheegay meelo badanna waan ka sheegay iyo xubnaha ay ka kooban tahay waxa imika ila muuqata marka wixii dadaal la sii wadi karaya in imika la sii wado laakiin doorashooyinka soo socda ee bisha November 15 dhacaya dawladda halka ka soo bixi doonta saddex xisbi kii guuleysta inay la yimaadaan fikrad cusub iyo dadaal cusub iyo maxaan ku raay karti cusub in la yimaado oo arrinta ku dhaqaaqo Dr. Ahmed Hanu guntay ka tolontaa marka in aad hawsha ka bilowdaan dalalka Afrika iyo waliba xataa wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ay noqdaan kuwa miro dhala maxaa diidan kadibna yaani hadafkaasi la raadiyo way suurtagali kartaa oo waddan la mari kara taas weeye laakiin waxaan ku yiri waxa weeye national strategy waa inuu 5 qodob ka koobnaado aniga sida ay leeyahay qodobka ugu horeeya horta waxa weeye balintaanada adduunyada uba dhawaaqin inaad isku dubarido qadiyadu waxay tahay iyadoo buuxda oo la alashan karo oo la liqi karo adduunyada laga dhaadeen karo taasi si cilmiyeysan in loo qoro oo la isku hagaajiyo la isku dubarido waa koow talabaad waxa weeye dadkii qaadayay ee lahaa kartideeda iyagana in miida la soo saaro oo aan ahayn dad la iska magacaabo ee dad background-tooda iyo kartidoodu ay keeni karto arrinta caynkaasa oo mas'uuliyadda weyn qaadi kara saddexaad istaraatiijigaas waxa weeye in la garto oo aad iyo aad inta loo qiyaaso la calaamadiyo dhulka la geenayo wadamada adduunyadu way badan yihiin Afrika oo qura ayaa dhowr iyo 50 wadan ah